weliba saaxiibo qaali ah, laakiin shanta farood ayaana sinnayn. mid ka mid ah waa wiil aad iyo aad u wanaagsan, kan kalena waa mid aad iyo aad u xun. wiilkii ayaa lugtii ka qabatay gabar yar oo tuugsanaysa si ay kaalmo uga hesho. wiilkii waxa uu hayay keliya hal lacaga, laakiin u dhiganta lacag aad u fara badan. midkii la socday ayaa wuxuu ku yidhi, sideed u siisay lacagtan aadka u faraha badan? maahan inaad lacagtan siisa buu ku yidhi. markaasuu yidhi, lacag kalan haya male, waana u niyeystay sadaqadan ee naga soo wad. kii xumaa wuxuu ku yidhi, keen lacagta. ka qaatay lacagtii faraha badneed ayuu ka qaatay, wuxuuna ugu beddelay shilimaan yaryar. allahu akbar. maalintii xigta walaalayaal, muxuu sameeyey wiilkii wanaagsanaa? markuu ogaaday inuu saaxiibkiisa xun yahay, uusan haddana iska buri karin, ayuu wuxuu ku farsameeyey, waa kaa daba imaanayaa, intaan wax ka doonanaya ayuu ku yidhi. ilaan wuxuu rabaa inuu soo sadaqaysto waxa uu hayo. sidaas ayuuna ugu sadaqaystay lacagtiisa. wiilkii xumaa wuu iska soo reebay. asbaabtuu u soo reebaa waxay tahay, shalay wuxuu sameeyey arrin fool xuma. wuxuu is yidhi, maantana haddaad lacagta siiso oo weliba asoo kula jooga siiso, sidaas ayaa haddana lacagtii ugu qaadanaya. waa wiil aad qalbi wanaagsan. maalintii kale maxaa dhaca walaalayaal? isla sidii ayuu ku sameeyey. waa kaa daba imaanayaa buu ku yidhi. markaasuu ku yidhi, maalmahan waan ku fahmi la'ahay ninkii. markaasuu dhaha, waa kaa daba imaanayaa. haddana sidaas ayuu sadaqadii ku siiyey walaalayaal. waa wiil aad iyo aad u qalbi wanaagsan walaalayaal, maasha allah. maalin walba wuxuu ku sadaqaysan jiray inta lacag uu hayo, lacagtii ugu badan ayuu ku sadaqaysan jiray. maalmo kadib maxaa dhacay? wiilkii iyo saaxiibkiisa oo isla socdaan ayaa wiilkii wanaagsanaa wuxuu damcay inuu sadaqaysto. gabadhii ayuu hareerihii ka waayay. markaasuu arkay gabadhii oo iskuulka imaaday. allahu akbar. wiilkii aad iyo aad ayuu u farxay. weliba waxaa kay timid ilintaasoo ah ilin farxada. maxaa yeelay gabartii yarayd lacagtiisa ayaa iskuulkii lagu geeyey. maxaa yeelay asiga waqti walba ayuu wuxuu sii jiray lacagtaas ayay ayadana iskuulkii ku dhigan jirtay. allahu akbar. walaal macaan, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay daawashada aad daawatay fiidiyooga. waxaan kaa codsan lahaa walaal inaad gaadhsiiso walaalaha kale si fiidiyooga looga cibri qaato. jasaakum allahu khayran.